وأنا سلامي أصحابتي ذا سيتين ما أنتو حربنا كهذا النوع موضوع آد مهمة تهريبته صومالية التهريبة قبل أن أجدان قبل أن يوروبين الشوكتا especially Sweden ستوكهولم قبل أمريكا وإريتريان فيديو كان مال مكهر بيسوق لسي آد بان الله ضاوى ذا فيديو كان مع إنه قبل أن followers بدل ماله قبل أن واحد صامرتي تهريب especially طريقة ليبيا information آد لوغان حيسو صارتي oo ku dhaca dadka Liibiya u tahriiba especially haday asalkooda ka soo jeedaan East Africa so ayadu طبعا si khaas ah u hadlaysay dhibaatada la soo gaarsiiyay laakiin waa yani victim kaliya ma aha gabadhan xataa shaahid weeye xataa waxay soo meeshin gareysay Soomaali horteeda lagu dilay wiilala oo hadhoona la gubay video insha Allah Ingiriis bay طبعا ku hadlaysaa soo kaamil قبل حتى وحي تري أنا قاعد مرة بالصومال واحد لو لكن ضد صومالي هرتي ذا القول لي باجرة حتى وحي قرطي إنا سطح شير قبل ما عمل قضي as a slave الضونهان ناقت الصاوي قد وجدان الضونهان بالله قضي وحي تري كل جدنا ما هي ضد كيس تفرق رم صار بالسماية قبل حتى وحي شيكتي بين إن الله شيء especially markii waddanka ka soo baxaysina lagu yiri 4 saac waxaad ku jaraysaa saxaraada Liibiya 4 saac Trablis way joogtaa halkaasna waxaad joogaysaa saacado gudihiisa wuxuu dhan waxay ugu dhigeen adigu wax jara inay jiri ku galayso xataa waxay tiraan anigu nolosheeda khatar baan galay waxyaalaha xataa details badan bay ka hadashay gabadhan hadda طبعا xataa muslim ma aha waxay tiri inta khasab loo muslimiyo magac loo baxshay adigu jab iyo hoog meesha waxyaalaha muhiimka waxa weeye lama fiiriyo qofka diintiisa muslim dadka muslim laakiin waxa kullu ma diintaada muslimin way lagu dilayaa more laakiin waxa xataa Soomaalidu ayagoo طبعا oo yani muslim aqalkii laga takhalusayga طبعا waxyaalaha la yaabay waxa weeye waa mujtamac Soomaali u arkaweynay dad saaro kale ta ah oo Yurub nala jooga oo waxaan ka hadla ama xataa dadka yani galay wadamada kale sida Canada iyo Mareykan adu qof soo maray dariiqan ma arki qof hadda gabadhan xataa fiiri waxay dhigaysaa hadda waxay ku socotaa dawooyinkan yani dhibaatada loo geystay waxay tir walaalkeedu lacag haysta wuxuu dhan jooga oo shaqeyn jiray baa waxay tir mar walba $200 lacag badan $100 baa gabadhan sida marka ilaa adoon ahaan baa lagu gaday marka lacag baa la rabaa in la baxsho sida gabadhan xor looga dhigo halkaas la maraya qof xora wala soo qabsay markii Liibiya wadamada aad u xun weeyo carabta fiidiga saani sheegay soo kaamilana waa inii soo dhigay insha Allah halkan okay insha Allah كمان waxaan ka hadlaynaa wadanka labaad ee Soomaali u tahriibaan oo ah of course Yemen طبعا اخبارtan ayaan badweyd ba dad ii soo diray ilaahay khayr siiyo برنامج Yemen buu ka hadlayaa 2016 يعني almost more than 7 years baa laga hadlayaa okay عنوانكيس طبعا حوي برنامج تسجيل التخلص من المهاجرين غير الشرعيين حلقة تخلص يا ضدك أو يعني شرع الضرر كسوقلا يمن ميشان مركب محال ربع ميشان وحال ربع وحال كلا صاريا وقلدي وحوي ودك هذا اللي وريكتي لكن كوي هو ربع سياسي سبيتشري كوي حكومة علي عبد الله صالح وحيس الأمين مال الصومالي ذا نوحل الجسو دويسن شري لعب بالجو قاعدين شري يونايتد نيشنك فمقعود وحال اللي هذا يمن ضدك تشوف الصومالي ذا لاجئ اقتصادي يعني أدو حتى يقحوتي إيكونومية هم بلقى فايدة سنية marka dawladii hore iyo waxaan hadda joogo xuusiya the same way okay waxay qoreen marka inuu UN ta baa waxay tiri dadka dib ha loo registreeyo dib ha loo qoro waana ogaana inta qof ay marka waxay yiraahdeen dadkan kala saarayna Soomaalida iyo Afrikaanka kale so waxaan ka dhignaa Afrikaanka Soomaalida gaar u qasabka lacag ku qaadanayaan hadhow Afrikaanka inta rabteen qaxootiga isku dhiibta ahlan wa sahlan waxyaalaha marka qasalka waxa weeye mid badax iyo bilaa waa ka halkan ku qortay wuxuu qoray waxa la qabanayaa oo la tarxiilayaa ay qof wuxuu ahaa oo isqorin iyo inta qaxootiga xataa duu Soomaali yahay hadhowna waxa uu jawaabay saalka u jeedaan nin oo inta mas'uulka ka Andrew Knight la yiraahdo mas'uul علاقات الخارجيه بمكتب فضيله الامم باليمن يعني علاقتها oo خارجيه ah inta Yemen mas'uulka yahay wuxuu سالكا ujeedaan mucaahado waxa jirta oo 1950 la yiraahdo laajiinta dadka qaxootiga ah inay xuquuq leeyihiin oo lagu xadgudbo which means qofka sina la tarxiilin in la dilin in la xirin ila so halkaas afcad nin madaxa soo baxay wuxuu leeyahay waa qabanaya waa xiraya jeel baan gelinaya waa tarxiilaya okay waka way cadeysteen halka waxa ku qoran التمييز بين اللاجئين الصوماليين والمهاجرين الفارقة لأغراض اقتصادية economy أهم بلغة فايدة طبعا هل كان ماشي اللي باربل كان كسمي والله كلر كان في صومالكم أقان وكلرنا إن شاء الله باربل كا
igu soo qoraf Soomaali waxa la yiraahdo waxay yiraahdeen 6 meel oo qaxootiya baan sameeynayna طبعا bari hore la sameeyay Sanaa iyo Cadan agtiisa okay aan kuwii hore ma aha kuwa cusub oo Soomaalida lagu gurto halkan xogaa ka tagaya hoos waxa ku qoran 750 qaxooti Soomaaliya bay tirsadeen mujeedan okay that's meaning dadkaas xataa waa nus milyan iyo xoogaa maaha dad aad u badan laakiin dhaqaale weyn bay ku soo helayaan balaayiin ah okay ama milyaaraad Soomaalida markaan waxa oran lahaa wadamo fashilmay ama Liibiya hadda wax ma yaalaan Yurub hadda way soo xumaanaysaa Yemen waxba ma yaalaan ayaga baa noo soo qaxaya khaliijka sidii hore ma haddaad dirabtidna sii qaxdid Liibiya iyo Yemen Yemen xataa waxa loo aadaa UN ku qaxiso UN dadkan ala raas bay ku gadanaysaa marabaan ma fad meesha walaatay ma jirto adi marka maxaa samaysaa horta dadka xagga jooga aan waxaan lahaa soo laabta wadankaaga soo laabo laana asagiiba kula jooga oo nolol ka raadiyo qofkan dadka Liibiya tagayana jooji because adu naftaada tahlikaad gelinaysaa okay طبعا dad baa hadhow waxay oranayaan oo xanaan adiga lama soo laabatid xabiibi anigu Soomaaliya kama imaan ma ka soo bixin عشان saa ugu soo laabto faham laakiin aniga insha Allah waa imaanaya wadankayga laakiin oran soo laab xilaa qof meesha ka bax kama bixin ya xabiib kuma dhalan aniga Soomaaliya بس إن شاء الله I will come back ما قرأتي بإذن الله تعالى تاسو حوي ضدك سؤالها ما أنا يعني مرة بالسوق قرامة إسكت خطرت أوكي موضوع كلام شراء وطبعا كصعب طبعا أكتيهين مع المهن هذا كتشرنا وحب العمانة يا كوبكي أفريقيا ولا سكوت ديارنا يا 2026 هدونا يا آذا يا كوبك الدنك عن سوماليا وحكوا سو آذي نمبر 1 الجيريان العيار عن أخبارها عربتو الجزيرة كتشرتو شرى إلى ما أنت وحكوا قرنا أخبارها عن سن سبورتيجا إنه قف صوماليا كعلى تونسيا هرتل هذا معسكر كتونس ويا قف صوماليا مركا وتهريبي وبحا يوروب وصعدا ولاعبين صوماليا أخبارت الجيريا كتيرتا طبعا السنين تيمادين محوها لاعبين الصومالي ذا عيارتوي دي ما أنت خميس ويا ما أنت بعياريان الجيريا الصوماليا حتى أخبارت الجزائر كتيرتا واكس سيت ساعة كهر ويا إنه ننك الصومالي ذا الملاعبين تامد بانجا على رأي أنتو فيس تو فيس نوجو إيمان أيوش مركا خبر كان إنه صح نقرأ أنا كتا سومالنا هاي مرحلة اسمحنا جارسية إنه حتى ضدكي يعني هنتدي وطن كأما ضدكي ودكي متلية وحيالها مهم كأ إنه قفك استهريب وحيالها حتى قصة ترتي وحوي الجزيرة وحي سوق قرطي إنه حتى كهر كي وموسم كي وراها وقتي وراها سيزن كي وراها إنه ستح لاعبين وجبوتيانا ساسو كلا وعررين يجوا جيري العيارية سو أساس الصومالي وارجو دبع بتصريا مرة والبا إن التهريبتي أما إن يعني يجوا حقنا بقدين لكن أدقوا قحوتني مكاتا يمودن كأما نرش هذا وحكي طبعا هذا مشكلة ده وحوي تدك الصومالي البضن كود مؤجا وحي عملها مثلا يوروب أما ويسترنك بشكل عام نظل خطريني سوقيسو وحاس نظل في عن مكو سوقيس صاحب بضن كتد كنا ستريس بكل يوروب شوجا تان لبعض قارد يوروب كل جذا وربع كنا الأفريقيا adiga dadkii oo dhan special carabtaha iyo ajnabiga iyo afrikaanka wadankaaga u soo qaxaya marka qofkan wuxuu wadankaaga ka helay oo adigu aad arki weyday maxay tahay that's why taas waxay ku tusaysaa Soomaaligu lacag buu haysta ku tahriibo laakiin aqli oo investment ku samaysto ama horumar u gaar ma yaqaan wadankiisana waa dahab uu ka faa'iideysan karaa but he don't know how come say yani u sameyn lahaa so aniga waxaan sameynayaa insha Allah hadda laga bilaabo حلقة وحن ديارنا يا قارنا حتى ودياري أو محا بسنس سوماليا لصمين كراها ضد أدو الصومالي تحي يعني بسنسية ده محي تحي أو حكيه اللي كرتد especially ضدك للرجال بقى because أنا وحن برتي وإيكونومي so إيكونومي أهان وكعاون كراقة فكس إنه فكرة كيرنا يعني فكرة داس you can try وحتى وحلقة يابا إنه يكون قاضن ميزانية دوين إنه الصمية أوكي وحلي هذا المشروعات الصغيرة أوكي إن شاء الله سلسلة صابلة بينا سيدا حلقة ده مسلسل كوكالي مروا بفكرة عصب ضد تجيو وحسمية أضو السيال كأوبا بلابي كرتا أحسن من تهريبتان والله بالله والميشا وحيا الله مالي يوروب تلفتر كيسا أفريقيا كنو يا هذا مركا وطن كاغا هذيك كين كنقو maxaa ku soo arkayna la yiraahdo afkaaga ahaan bar meel baraf ah meel dabeecadiisa keeni karin future ka dib kugu noqonayso ma istaahisho dariiqaas oo dhan dadka badankood baxay 95% aan arkay way shalay wixii tiri wallahi waxa soo lacag ma istaahisho so hawsha la socda insha Allah ilaahina faraj ku noo furi doona dad Soomaaliyeed